Dinsoor waa magaalo taariikh fog leh oo dadku ay wada yaqaanaan. Sida loo wada ogsoon yahay waxaa ku dhashay fanaaniin caan ah oo si weyn loogu yaqaano guud ahaan geyiga Soomaalida ay degto, sida fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo fanaanka Cumar Nuur Cabdulle. Intaan ku sugnayn Dinsoor, waxaan u kuurgalnay inaan booqno guryihii ay ku dhasheen fanaaniintan iyo halkii ay ka soo bilaabeen heerkooda waxbarasho. meeshan aad arkaysaan waa dugsigii ugu horeeyay oo Dinsoor laga dhiso, dugsigii hoose ee Dinsoor laga dhiso oo ugu horeeyay waay. labadaas qol oo labadan daaqadood inta soo xigta, qolka dhinacaan soo xiga xafiis buu ahaa, kaasna fasal buu ahaa, laba fasal oo dhinacaas waxaa jirtay baraaka ahayd. marka Dinsoor dugsigii ugu horeeyay oo laga dhiso ayuu ahaa. dhismahan dambe waqti Maxamed Siyaad Barre oo qabsaday iyo dawladdii ka horeysay ayaa lagu daray. Marka dugsigan dad caan ah oo la yaqaan ka soo baxay. dugsigan dad caan ah oo la yaqaan ka soo baxay. Cabdisalaan Sheekh Xuseen ninkii wasiirka ahaa ka soo baxay. Maxamuud Ali Axmed oo urur shaqaalaha joogi jiray baa ka soo baxay. Cabdirashiid Axmed nin la yiraahdo oo wasiirka xigeenka garsoorka ahaan jiray baa ka soo baxay. Xasan Aadan Samatar baa ka soo baxay fanaaniinteeni ah. dad aad u waaweyn baa ka soo baxay. Xasan Aadan Samatar waa fanaan weyn oo Soomaalidu ay wada taqaano, isla markaasina degmadan si weyn loogu yaqaano. Dinsoorno waxaa aad loogu dhageystaa heesaha mayga ee uu qaado alfanaan Xasan Aadan Samatar, sida silsiladii caan baxday ee Huburow.
dugsiga uu qur-aanka kariimka ka baranayay alfanaan xasan aadan samatar ayaa inoo sharaxaya abwaan maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano Garaar oo ka baxay dugsigii sare ee la falay kuna dhashay degmada Diinsoor. quraanka away dugsigii uu soo dhiganayo quraanka bartay saaxiibkeen xasan aadan samatar iyo dhalinyaro kala badan oo macallimiin noqday ama wax ka noqday ayaa wax ku bartay weliba dugsiga waa la casriyey geedkan intaa ka dhigay waa yara dugsiga quraanka laga dhigay casriye quraanka laga dhigay marka awalna hoos dhigay macallin aadan macallin bisbaas ayaa لوحة يسوون بذكر هذه اسمها ولاية أبواك ويردون سوبي سيد المختار محمد وبرازي أنا إنسان عبد الله لا إله إلا بس هذه سوى جرين بس كاسم هو تكروشون سوي كذا ما يرى سالم يلي الدين شرط كذا ما يعرف بس قناع شيء وها حسن سكولي كان تدخل سكولي يصير دياسو لجت سكولي تنبو لا يعني مرتاح تاسو تلفون مركو هوا ديال يركون يروج يروج daawadayaal sidaad arkaysaan waxaan ku suganahay gurigii uu ku dhashay xasan aadan samatar fanaanka weyn waa goob taariikhi ah oo si weyn loo xusuusan karo gudulkan aad arkaysaan waxa ku dhashay xasan aadan samatar marka waxa ay la joogaa abwaan taariikhdiisa wax badan ka yaqaana noo falanqeyn doona bal siday ahayd waayihii barsamaadkii guriyaha wuxuu حسن لكن سديتو يسديدي وحي كدم بي ودنك مركي ودسماي asaga iyo wixii la sheegay diyaas baray wada aadeen meeshii waxa joogo kaliya gabadho ayaa joogtay intii xamar ay joogtaa wadankana ma fiicin taas marka wariyahan burbursan hadda meesha aan ka soo gelin oo dhagax ahayd iyadoo la bilaabay ayaa ku dhacay xasan dib uma soo noqon ilmihiina dib uma soo noqon marka anaga reer Diinsoor ahaan markaan nahay ay noo tahay meel taariikheed guri taariikheed bay noo tahay banaankeenii weynaa abwaankeeni walaalkeeni saaxiibkeeni guriga ku dhashay waa ma garatay marka waxa waaye gurigan waa guriga xasan uu ku dhashay taariikhdiisana waxaan u maleynayaa kontomiyadii inuu dhashay xasan inuu dhashay kontomiyadii inuu dhashay u maleynayaa wixii ka dambeeyay dugsiga quraanka uu ka baxayna waa kan masaajidkan inta ku yaal dhinaciisa ku yaala intuu kaga baxay dugsiga dhexe uu ka baxay iyo Talyaaniga dhisay dugsiga hoose Talyaaniga kadib baydhow u wareegay baydhow markuu tagayna ciidamadu ku beeray fanaanka weyn ee Cumar Nuur Cabdulle oo isna ku dhashay degmada Diinsoor ayaan u kuurgalnay inaan booqano halkii uu ku dhashay waxa sharaxaad kooban ka bixinaya abwaan maxamed cabdulaahi Garaar gurigan oo fanaankii weynaa Cumar Nuur Cabdulle jamaaday ku soo caan baxay gurigoodii waa guriga uu ku dhashay waa marka sidaas aawadeed Diinsoor fanaaniintii ka dhalatay dhan guriyahooda inaan إذا صوت أي عبالنا لكن وجري وكلش. عمر نور عبدله. عمر نور عبدله. مركا وحوها جريان اسمه سسا يجلم وقته قرامي وحل حر على دسي مركا ما السجوا السودان وكلش عمر نور عبدله. ما هي السجوا السودان كمان أنا وأنا هنقول لنا جريال أو لسه عرشانة براكوينا لكن وقت جدا بس عشان ميد وهيك تنبي أي جريال سان لقديه مركا عمر السجن إلهه ونحرسته سجاشني أفرتي سجاشي استدعي وقتها سولته مركوا كان جريودي. inkastoo fanaanka Cumar Nuur Cabdulle taariikhdiisa halkan aan ku soo koobi karin ayaa isku daynay inaan eegno heesihii caanka ahaa
ee uu qaaday. Degmada Dinsor oo ah degmo ku aanbaxday barashada diinta Islaamka iyadoo waayihii bersamaadkii ay ahaan jirtay meel loo soo doonto culumta diiniga. Waxaa xusid mudan in halkan aqoon-yahano caan ah ay ku dhasheen sida Professor Cabdalla Cumar Mansuur.